Doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelatay Soomaaliya. Recep Tayyip Erdogan oo ah madaxweynaha hadda talada haya ee Turkiga ayaa ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday, isagoo helay 52.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ka guuleystay Kemal Kılıçdaroğlu oo la tartamay oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Erdogan ayaa saaxiib dhow la ahaa Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo uu dib u furay safaaradda Turkiga ee Muqdisho. Turkiga ayaa tan iyo xilligaas Soomaaliya u fidiyay gargaar bini'aadantinimo iyo gargaar horumarineed oo aad u badan. Turkiga ayaa sidoo kale qayb muhiim ah ka ahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ah koox argagixiso ah oo ka howlgasha Soomaaliya. Guusha Erdogan ayaa loo badinayaa in ay xoojin doonto xiriirka Turkiga uu la leeyahay Soomaaliya. Erdogan ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono taageeridda uu Turkigu siinayo Soomaaliya, isagoo sidoo kale muujiyay inuu daneynayo in la kordhiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Turkigu ka wado gudaha Soomaaliya. Soomaaliya waa dal jilicsan oo u halgamaya dib u dhisidda kadib 10 sano oo colaad ah. Taageeridda Turkiga ayaa muhiim u ah dib u soo kabashada Soomaaliya, waxaana guusha Erdogan ay u tahay mid horumar weyn u ah dalka. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha gaarka ah ee natiijada doorashada Turkigu ay u saameyn karto Soomaaliya. Gargaarka bini'aadantinimo ee la kordhiyay. Turkiga ayaa ah dalka ugu weyn ee bixiya gargaarka bini'aadantinimo ee Soomaaliya, waxaana Erdogan uu ballan qaaday inuu sii wadi doono taageeriddaasi. Tani waxa ay wax ka tari kartaa in la yareeyo dhibaatada haysata malaayiinta Soomaalida ah ee u baahan cunto, biyo iyo hoy ay degaan. Kordhinta kaalmada horumarineed. Turkigu waxa uu sidoo kale ahaa deeq-bixiye weyn oo dhinaca horumarinta ah ee Soomaaliya. Tani waxa ay gacan ka geysan kartaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, warshadaha iyo nidaamyada daryeelka caafimaadka ee dalka. Kordhinta iskaashiga militari. Turkiga ayaa hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana Erdogan uu ballan qaaday inuu kordhin doono howlgallada militari ee Turkigu ka wado Soomaaliya. Tani waxay gacan ka geysan kartaa hoos u dhigidda awoodda Al-Shabaab iyo inay Soomaaliya ka dhigto meel nabdoon. Isku soo wada duuboo, natiijada doorashada Turkiga ayaa loo badinayaa in ay u wanaagsanaan doonto Soomaaliya. Ballanqaadka Erdogan ee ku aadan taageeridda Soomaaliya waxay ka caawin kartaa dalka dib u dhiska iyo ka soo kabashada 10 sano oo colaado ah.